gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulla Cawad ayaa si diiran maanta waxaa loogu soo dhaweeyay deegaanka la jiile ee gobolka Galgaduud. gudoomiye ku-xigeenka oo safarkiisa uu ku yimid magaalada la jiile ay ku weheliyeen wasiirro iyo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa safar dhinaca dhulka maanta waxa uu uga soo ambabaxay magaalada Cabudwaaq oo uu ka soo degay. gudoomiyaha oo ay galbinayeen mas'uuliyiin kala duwan ayaa socod waxa uu ka soo maray degmada Xalaale iyo deegaano kale oo si diiran loogu soo wada dhaweeyay. markii aan soo gaarnay magaalada la jiile oo shacab badan ay si diiran ugu soo dhaweeyeen wafdiga gudoomiyaha ayaa ugu horreyn waxa madasha lagu soo dhaweeyay ka hadlay gudoomiyaha deegaanka la jiile mudane Xasan Cabdiraxmaan Faarax iyo mas'uuliyiin kala duwan. gudoomiyaha labaad oo golaha shacabka Soomaaliyeed asagiyo wafdiga uu hogaaminayo waan soo dhaweynaynaa waan salaamaynaa ku soo dhawaada dadkiinii iyo dalkiinii in ay halkan kuugu yimaadaan oo ku arkaan oo aad iswarsataan adiguna waajibkaas waad fulisay ilaahay kor ha kaa dhigo annaguna waxaan ku tusaynaa in aanu ku ognahay waxaad qabatay iyo adiga iyo waxaad damacsan tahay intaba. gudoomiye waa ku soo dhaweynaynaa ku soo dhawow gurigaagii la jiide ku soo dhawow arrimaha doorashada iyo midda ay ka tashiga halkan aanu u nimin aanu u joognayna dib baynu iskaga waraysan doonaa uga hadli doonaa. Maxamed Cabdulla Cawad baarlamaanka aqalka hoose labaad Maxamed Cabdulla Cawad ayaan ku soo dhaweynaynaa deegaanka la jiide. gudoomiye sida aan la socoto waxa weeye meesha tan waxa ka socday shirar hordhac oo muddo hadda qaatay dhowr casho qaatay ayaamna ay beeshu kaga tashanayeen ayahooda iyo magaranaysa sida deegaamadooda iyo nidaammadooda loo hormarin ay kaga tashanayeen waqti badan ka bacdi iyo dhowr ka bacdi waxa ka soo baxday meeshaas inaad ka codsadeen inaad ugu timaado deegaanka la jiilo oo shirka kala soo qaybqaato. wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo kalluumaysiga ee dowlad goboleedka Galmudug mudane Cabdidaahir Xuseen Cali Dhagadheere oo isna ka mid ahaa mas'uuliyiinta ku soo dhaweysay deegaankan gudoomiyaha ayaa halkan ka hadlay. soo dhaweynta wafdiga uu hogaaminayo gudoomiyaha ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliya aad iyo aad baad u mahadsantihiin. gabagabadii ayaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulla Cawad oo madasha lagu soo dhaweeyay ka hadlay waxa uu mahadceshay dhammaan dadkii soo dhaweeyay. magaciina oo aan xildhibaannimo ku matalo inaan ugu mahad celiyo shacabka iyo maamulka iyo xildhibaanada reer Cabudwaaq oo maanta subaxii ilaa iyo duhurkii noo taagnaa aniga iyo dadkii ila socday noo taagnaa airportka Cabudwaaq oo si sharaf leh noo soo dhaweeyay ayaan rabaa inaad shacabku u garaacdaan walaalihiin reer Cabudwaaq. degmada Xalaale ee caasimadda noo ah dadkii deganaa gudoomiyaheedii saraakiishii maamulkii ugaas maantood waxa weeye iyaguna Xalaale banaankeeday taagnaayeen oo ay la soo galbiyeen oo afkan sokorna keeneen ayagana magaciinan ugu mahadnaqaya. qodobka koobaad waa la yeeray ma la isaga yeerina waa la xisaabtamayaa. waxaan xilkii aan reerka u hayay intii aan hayay aan u qabtay ama awoodaydu ahayd waxa weeye waa la xisaabinayaa. wada tashi baan loo bilaaban doona waxa weeye dhalinyarada waa is arki doonaa waa shiri doonaa shir gaar ah haweenka waa shiri doonaa ciidanka qalabka sida oo isugu jira booliis iyo military oo deegaankan ah waa shiri doonaa. intaba waxay noqon doontaa isla xisaabtan maqrib weeyaan farxad iyo reyn daal ma dareensanin gaajo ma dareensanin farxad baanu dareensannahay wada hadal waa inoo dambeeyaa. Cabdikariin Axmed Bulxan raadiyaha iyo TV-ga qaranka magaalada la jiile.